وفد علوس وهجامينيو مدحوينها Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay qayb ka yihiin xubno ka mid ah golaha wasiirada ee la taliyaal ka tirsan xafiiskiisa ayaa la filayaa inay socdaal ku tagaan magaalada Riyadh ee caasimadda Sacuudi Carabiya. safarkan wuxuu noqon doonaa midkii saddexaad oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dalka uga baxo tan iyo markii uu dilaacay khilaafka u dhaxeeya Israa'iil iyo Soomaaliya. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu socdaal ku tagay dalka Turkiga iyo wadanka Djibouti kuwaas oo garab istaag xoog leh u muujiyay dawladda Soomaaliya xilli Israa'iil ay aqoonsi buuxa siisay Jamhuuriyadda Somaliland ee iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud boqortooyada Sacuudi Carabiya gaar ahaan dhaxal sugaha iyo boqorka guud ee wadankaasi waxa uu kala hadli doonaa qodobo waaweyn oo masiirka dalka taabanaya. Soomaaliya ayaa shalay soo saartay warqad ka timid wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya kaasi oo la sheegay in garab istaag xoog leh loogu muujinayo boqortooyada Sacuudi Carabiya oo duqeymo xoogan la dhacaysa koox fallaaga ah oo ka soo horjeeda dawladda Yemen ee adduunku aqoonsan yahay. Soomaaliya waxay sheegtay inaysan gorgortan ka geli doonin in la kala jaro wadanka Yemen isla markaana ay garab taagan tahay boqortooyada Sacuudi Carabiya. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salman ayaa la sheegay inuu la dhacay daacadnimada magaalada Muqdisho isagoo sheegay inuu garab istaag xoog leh u muujinayo dawladda Soomaaliya isla markaana Israa'iil dib looga riixi doono aqoonsiga ay siisay Somaliland. dadka rogroga arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in dawladda Soomaaliya xilligan tallaabooyinka u qaadayso dhanka Riyadh ay soo jiidanayaan boqortooyada taas oo ku kalifaysa xataa Riyadh inay buuxiso doorkii kabida dhaqaalaha ee Imaaraadka Carabta hadiiba Abu Dhabi meesha ay ka baxdo. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kale boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale madaxweynaha Erdogan oo madaxweynaha wadanka Turkiga labadaba wuxuu kala hadli doonaa arrimo waaweyn oo ay ka mid yihiin in Soomaaliya lagu difaaco jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa in Soomaaliya door fiican laga siiyo arrimaha siyaasadda ee gobolka Bariga Dhexe in Soomaaliya laga difaaco dalalka ku soo duulaya iyo qodobo kale ayaa la filayaa dhinacyadu inay ka wada hadlaan wixii ku soo kordhana daawadayaal waa inoo wararkeena dambe. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah